السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal soo dhawaada halkan waa waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno abwaan dejiye oo ah markii ugu horeysay ee uu kaamarada hor imaado. dejiye maanta maxaa ku keenay kaamarada horteeda ayadoon ognahay inaad in badan ka gaban jirto? waa mahadsantahay Dr. Food Ciro, aad baad u mahadsantahay. waa runtaa caawa kaamarada oo aanan saaxiibo ahayn baan hor imid, kulleyna wax wada un baa jira. waxaasina wax kale maayo, waa hambalyada ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya yeelatay iyo dowladda cusub ee noo dhalatay iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee maanta oo madaxweynuhu nominate gareeyay. hambalyadiisaan usoo fadhiista caawa, ma garata? sax. kulley dee waa shucuurta macnaha qofku iyo sida uu dareemayo inuu cabiro waa wax muhiima weeye. runtii Soomaaliyana waxaad moodaa in taariikhda markii koobaad ay isbedel dhab ah oo dhinaca dowladnimada ah ay ku tallaabsatay baad moodaa. taasaa keentay markaan caawa kaamarada hor imaado Dr. Food Ciro. okay, aad baad u mahadsan tahay. maanta wixii isli ka dhacay iyo weliba gobolada kale adaa igu dari doonto, adaa soo indheeyay. bal maanta reactionkii ka dhacay doorashada magacaabista wasiirka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Bare, bal ka sheekay arrintaas. runtii waan sugaynay horta, oo labadii beri ilaa saddexdii beri oo lasoo dhaafayba waxaad sida dee inta badan aynu miidiyaha kala soconnay ama social mediaha ama dadka xogaalka inoogu warramayeen in ra'iisul wasaaraha uu ahaa in macnaha lagu dhawaaqo wax la sugayay bay ahayd. sax. runtii xilliyo way jirtaa shaki uuna yar galay oo xalay oo kale mar aad loola yardaahay oo annagoo sugayno oo aad u dhafarnay. laakiin haddana madaxweynuhu sidii ballantu ay ahayd runtii lagu ballamay ra'iisul wasaarihii finalkii maanta lagu dhawaaqay. waxaana noo ahayd jawi cusub iyo waa cusub oo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan shanta Soomaaliyeed u bariyay buu ahaa. isbedel cusubna runtii ahaabuu ahaayo dee taasaa waxay keentay in si gooniya celebrationka iyo waxaa weeye dabaaldega ra'iisul wasaaraha cusub laga dareemo guud ahaan shanta Soomaaliyeed. waxaynu ognahay wasiiradii hore ama ra'iisul wasaarayaashii hore marka la magacaabo ma aysan gudbi jirin saameyntooda iyo dareenkooda iyo ra'iisul wasaaraha cusub farxadiisu xuduudda Soomaaliya ama qaaradda 7ka ama gudbi jirin. laakiin ra'iisul wasaarahan cusub wuxuu kaga duwanaa ra'iisul wasaarayaashii isaga ka horreeyay. saameyntiisa iyo dareenkiisu wuxuu noqday mid xuduudaha dhaafay buu noqday. runtii dabaaldegyada wadamada dariska waad arkaysa, Kenya oo kale, Nairobi wixii ka dhacay waad arkaysay, Gaarisa, Jigjiga oo hadda iyadana aan daawanayo aad ula yaabay sida la isugu soo baxay madaxweyne Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaarihiisii inay dadku sidaa ugu celebrate gareeyaan oo ugu farxaan. runtii waxay ahayd wax qiimeynteeda iyo dareenkeeda laba ahayd. maasha Allah, waa arrin aad iyo aad loogu farxo. maxaad u rajeynaysaa deganaanshaha geeska Afrika, siyaasadda cusub ee hadda bilaabatay? macnaha rajadaada maxay tahay? rajadaydu runtii waxay tahay geeska Afrika waxaa ka jiray maxaan ku idhaahdaa waxa la yiraahdo cadaadis fara badan baa ka jiray runtii oo dowladnimada Soomaaliya saaraa baa jiray. cadaadiskaas intiisa badan wuxuu ka iman jiray wadamada dariska ah. sax. Soomaalida laftirkeedu waxay noqotay in dadka wadamada dariska oo kale tusaale ahaan ra'iisul wasaaraha oo kale ama saameynta ku leh in iyada oo la ilaalinayo ama cabsi laga qabo saameynta faraha badan ee ay ku lahaayeen wadamada dariska iyo faragelinta dalka ku hayeen darteed in laga cararo dadkii iyo mujtamacii Soomaaliyeed. waxaa weeye isbedel keeni lahaa in muddo dheer laga cararayay. darbigaasu darbi soo jabay buu noqday hadda. waxaad moodaa in geeska Afrika uu waa cusub u bariyay runtii aynuna arki doono isbedelka iman doona sida aynu farxadda iyo celebrationka uga dareennay shanta Soomaaliyeed. in wanaagga iyo dowladnimaduna markii koobaad ay gaari doonto min tuulo ilaa gobol ilaa maxaan ku idhaahdaay heer shanta Soomaaliyeed inay gaari doonto oo ay ka bixi doonto
waxaa weeye 20 kilomitir gobolka Banaadir iyo caasimadda oo dowladnimadu ay 30 sano dhaafi lahayd inay markan ka gudbi doonto. Okay, dejiye aad baad u xasan tahay. Waxaan ku weydiiyey gacanta waxa kugu jiro dhowr calamo ayaa ku suran marka arinta bal ka comment gare. Waa ma santa horta calamadan calanka saxdi waa kan weeye calanka shanta Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha iyo dawladda Soomaaliyeed oo in u hambalyeeyeen calankooda waa ka weeye. Waxaan arkay dhalinyaro fara badan oo calanka Nairobi iyo meelo fara badan oo kale aad u warfinaya marka waxaan leeyahay hadda wixii ka dambeeyay kan waxaa weeye inoo laaba calanka Soomaaliyeed meel walba waa inaad sudhaan weeye. Calanka Soomaaliyeed waa in kor loo qaado Soomaalinimada aynu muujino weeye. waxaa weeye awalna inaga u dagaalanay oo calanka dhib badan baynu u maray iyo jinsiga Soomaalinimada inaynu ilaalino runtii dhibaato badan oo dadku ay fahmi karaan baynu u maray marka maantana gacanta waxaa weeye calanka Soomaaliya waxaanu doonaynaa inuu noqdo calanka ugu sareeya adduunka insha Allah. ما شاء الله arrin aad iyo aad u wanaagsan. Dejiye waxaa kaloo la isweydiinayaa waraysigii Fahad Yaasiin waxaa la sheegay arrintii madaxweynaha celebrationka loo sameeyey inuu hadheeyey. hadda ma la isdhihi karaa ra'iisul wasaaraha cusub wuxuu keenay dhiig oo macnaha xagga soo shacbixinta madaxweynaha iyo maaragtay celebrationkiisi. waa runta Dr. Fadl Ciro horta dawladdu sidii ay u dhalatay ilaa hadda run baa fiican markaynu fiirino ama qiimeynta aynu ku sameeyno social media oo kale oo dadku inta badan ay hadda dawladnimada lagala socdo. dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ilaa maalinkii uu ku guuleystay xilka ilaa hadda social media wali waxaa si maxaan ku iraadaa overwhelmed dominant ka ahaa ama haystay dawladdii hore iyo taageerayaasheedii nabadii nolol baa wali adduunka haysatay maanta wixii ka horreeyey. waana ku faraxsanahay ra'iisul wasaaruhu imaanshihiisii inuu marka koowaadba horta waxa uu soo kordhiyey ama isbeddelka uu sameeyey inay noqotay in bal horta la dareemo dawlad cusub inay dhalatay maanta ugu horreysay dadku awal ma dareeminba. waxaa weeye guriga farmaajo waraysiga Fahad Yaasiin waraysiga Faray baan haystay dawlad Soomaaliyeed oo cusub inay dhalatay fursad lama siinba dadkuna waxaa weeye waaba arki laayeen. maanta laakiin ra'iisul wasaaraha durba saameyntiisa waxaa laga dareemayaa social media iyo shantii qaaradoodba waxaa la dareemay dawlad cusub oo Soomaaliyeed inay dhalatay ra'iisul wasaare cusubna la magacaabay waana farxadda iyo saameynta koowaad oo uu soo kordhiyay durba ra'iisul wasaaruhu dawladdii Soomaaliyeed inuu bal horta headline soo saaray. ما شاء الله runtii maanta waa la dareemay si fiican baa loo dareemay halka weeyga aynu soo dhaafnay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dalka inuu madaxweyne ka yahay dadka qaar oo shaki baa kaga jira xataa. والله وأرين لا تعبان كرو marka insha Allah waraysigan meeshan aan kusoo gunaanadayna waxaan ka tagay haduu jiro wad ku dareysaa insha Allah taala marka dhageystayaal meeshan waxay noqon doontaa insha Allah taala meel arrimo badan oo muhiim ah oo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed wax u tar leh lagaga hadlo marka la socod wanaagsan in badan oo isku soo noqon doona insha Allah taala kaamiradan oo hor iman doona aad bad mahadsantihiin. haye dejiye maxaad ku dareysaa gabagabada? ama 100% waa sida aad u sheegtay Dr. Fadl Ciro aad u soo gabagabaysay waa naga raalaanaysa anigu khaasatan wali waa markii ugu horreysay kaamiradan hor imaado runtii shucuurtayda waxaa laga yaabaa farxad badan inay igu jirto oo hadalku iska gabadhaca suurtagal ah waad noo cudur daaraysaan laakiin waa sida Dr. Fadl Ciro sheegay waynu isku soo noqon doonaa wax badan baynu isla falanqeyn doonaa. dardaaranka aan ka tagaynaa wuxuu yahay Soomaaliya mid ah waxa weeye heshiis dunidana heshiis la slogankii madaxweynaha ayaan isticmaalaynaa Soomaaliya heshiis dunidana heshiis la baynu doonaynaa insha Allah taala inaynu tareenka Xasan Sheekh Maxamuud aynu ilaahay idamkii uu noqdo mid kaga dhabeeya marka insha Allah taala Soomaali weyn meel walba adduunka joogtaan waxaan leenahay hambalyo dawladda cusubna la soo dhaweeyo ha la shaqeeyo ha la garab istaago ha lagu kaalmeeyo in dalkeena meesha uu yahay kor uga soo qaado insha Allah taala boqolkiiba mahadsantihiin. ما شاء الله aad baad u mahadsan tahay. tani kulanti dambe daawadayaal insha Allah taala iyo isu soo noqosho wanaagsan ayaan idin rajaynaynaa oo anigoo dejiye iyo ana Dr. Fadl Ciro aad baad u mahadsantihiin boqolkiiba